waxbarashada ka warramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood baa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog uga warramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax dhaba ku darsanin سأوجد واحد ربعين أنت الماما وحبرشته خطرت دي واحد لورد جاوه حيي النتيجة البرودكت كيسوس أرتسين واركرنا علوم تبين هذا دوني ده الله صدق غيبوت غيب ولا كلا قرصدا ليس منسيو سينما الله يسقونا أقولاده بس السينما ده دوني ده هو ينايا ذيك النعلة غيبنا والله يسقو قصبه سنكال يسكجليه والله يسسيه ولا مال قريه قفك برريه قيبنا والله كلا قطابه هذا waxbarashada dunida taallaba ilaa saddex qaybood qaybta koowaad aan sinaba la isu siin waxay waa culuum siyaada waa culuumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xooga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culuumta ku saabsan bay leedahay mesela nuclear weapon iyo wixii ku saabsan la isuma ogola cidii xariiqdeeda xaggeeda soo eegtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culuumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core idea ay leeyihiin shirkadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadana ma bixiso core idea مثلا coca cola boqol iyo dhowr sanadood buu hadda secretary oo ay leeyihiin markasta dunida laba qof oo qura og xataa waxa meesha ka jiro oo dhan meel bay ku qarsoontay bangi bay taallaa laba injineer oo qura loo sheegaa waxaas la isugu qaldo that's all cid kale oogay ma jirto boqol iyo dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xooga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badana la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta iyada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybta wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture tahay hadday values tahay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kasta aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imika western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun iyo waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ayuu noqon lahayd kaana sakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso
oo dadka la baro. qaybna bay yidhaahdaan cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada, dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kalaynu sheegno, idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan. jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay? waa kuu banaantay. therefore iyada waa la kala gataa. professorkana waad gadan kartaa, jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa, waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka. idan waxay dhahan tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood. waa qayb aan laysu ogolayne secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto, qayb saka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto, iyo qayb mushtarak bini aadamku u yahay oo cid waliba ay gadayso.